inaan hadda idiin soo noqdo anigoo ku hadlaya magaca ururka samafal iyo kan tala wadaagba iyo ururka bulshada rayidka oo ka mid ahay gudoomiyahayga fadhiyo meel badan baa bulshada kaga jiraa waxaan arkaa waxyaalo badan oo dadka aan u wada muuqan qofka markuu bulshada ku dhex jiro waxyaalo badan baa dhalinyarada ama ka dhiman ama dhalinyarada qodobo halkaa waxaan soo qaatay dhowra dhalinyaradu waxay ka qayb qaadan kartaa dhismaha dhalinyaradu nabadgelyada dhismaha waddanka wax walba oo wanaagsan social media markaad dhegaysatid sida aad u kala fog tihiin oo u kala ra'yi fiican tihiin oo u kala ra'yi kala duwan tihiin ayaa idiin muuqanaysa idinka laftigiina markaa eegtaan waxaa jirta waxyaalo badan oo social media aad wanaag kaga shaqayn kartaan xumaana kaga shaqayn kartaan ma ahan marka inaad noqotaan midi laba afle waa inaad noqotaan midi wax fiican lagaga faa'iidaysto hadday noqoto dagaal hadday noqoto wax walba waxa loo isticmaalaya hadday noqoto habeenkii waxa dhaca magaalada shaqaaqooyinka dhaca wax walba idinkaa ku jira waxa wax ku samaynaysaa waa gabdhihii waxa samaynaya waa wiilashii waxa wax inta soo gaarayaan dhaawacyada ugu badan waa dhalinyaradii marka nabadgelyada wanaageeda iyo dhismaha waddanka iyo bulshada arrimaha bulshada ka shaqayntooda waxa wax ka qaban karaa waa idinka runta marka idiin sheego la-aantiin waa abaar marka wanaagga iyo waxtarka iyo waxqabadka aynu soo jeesano waynu aragnaa nabadgelyada waxay u baahan tahay marka aad banaankii ilaa 6 saac habeenimo socoto oo aan wax kula hadlaa jirin oo wax mobilkaaga ku baadar galaya aysan jirin oo wax hooyada ama walaasha ay dariiqa maraya oo maxaafad soo salaam meel ka yimid aan wax la yeelin waxa ka wanaagsan oo qabsoon lahaa maxay tahay badii sheeg nabadgelyo markaad ku soo noqotay 6 saac habeenimo waxaan xasuustaa marmar aan weyn jiray hadda ma haweysto runta ay idin sheegayaan marmar aan weyn jiray marka dadku ay saantu gaabato intaan magaalada geeskeed ka baxaan gees kale uga bixi jiray aniga oo caafimaadkayga inaan u lugeeyo rabo hadda ma haweysan karo waxaan ka baqayaa inaan midi lagu qabto ama waxaan ka baqayaa in la islaantii waa la jiitay waa la qabsado runta marka ay idin sheego weyn waxaa sameynayana waa dhalinyaradeenna cid noo timidoo nagu soo duushay ma jirto marka waxaan idin sheegayaa dhibaato weyn oo weyn baa nabadgelyada ka jirta aynu dhexda u xiranno u soo jeesano sidaan dariiq walba iyo xaafad walba inagu aan u kontarooli lahayn oo gabdhaha wiilalba dhexda taas xiranno aan xaafad walba aagaas dhiila intaasi ha kontaroosho waxaan tegey oo idinku soo darayaa qodobadayda Kigali ujeedada aan u tegay Kigali fasax ma ahayn kaliya waxaan rabay horumarka ay gaartay ayada oo dagaal ka dhacay ay islaayeen inta anagu iska dilay Soomaaliya in ka badan iska dilay yani horumarka ay gaareen quick يعني waxaan u soo qaatay tusaale ahaan waxaan tagay meelihii la isku dilay waxyaalihii la sameeyay waxay isku dileen filmadoodii dhan baan fiirsaday waxa ugu fiican oo ay heer ka gaareen oo nabadgelyadooda ay halka u gaartay waa isku xirka dhalinyarada iyo siyaasiyiinta iyo iyagoo ay tahay boqolkiiba 60 gabdho siyaasiyiinta iyo xildhibaanada inay yihiin ama boqolkiiba 41 yani gabdhihii sida loo qadiyay Soomaaliya oo qadso ma qadin gabdhihii ma hogaaminayay sababtoo dumarkii markay ay helaan chance ay ku shaqeeyaan dhalinyarada dhan baa ku dawfeynaysa laakiin markii aan la helin dumar la shaqeynaya dhalinyarada iyo dumarku waa labada isugu dhow oo wada shaqeeya oo wax wada qabta hooyooyinka gabdhaha dhalinyarada waa inta wax iska maqasha oo isugu dhow hooyadu wiilkeeda way waanin kartaa wax badan bay u sheegi kartaa kala sheekaysan kartaa aabihiis kala sheekaysan kartaa gabadhuna aabaheed baa laga yaabaa inay wax badan kala sheekaysto hooyadeed kala sheekaysan I don't know why laakiin aabaha ayay gabadhu isxisay wiilkuna hooyo isxijiya marka waxaan idin leeyahay aan wada shaqeyno rag iyo dumarba ha la qaato maskaxda qalinka oo ahayn qoriga qalinka ha la qaato markaan bilaabay waxay ahayd 2007 qalinka iyo qoriga ha la iswaafajiyo sheeka aan soo saarnay walaalayaal oo hooyooyin oo eedooyin waxaan idinka codsanayaa in aynu bilowno street xaafadaha inaan ka bilowno xaafadda aad ku caweynaysaan oo streetkeeda 3 gabdhood 4 gabdhood hay isxil qaamaan digoo la shaqeynaya diyaar baa idin lahay xaafad walba inaynu ka dhigno nabadgelyo in lagu mari karo lagu gudbi karo lagaga soo noqon karo hooyada soo adeegataa nabad soo noqon karto gabadha xaafad akhris soo aada ama sheeko aada ku soo noqon karto wiilka yarka ay dhalinyaro la soo caweeyo oo xaafadiisa ku soo laaban karo aan midi la darin wiilashii xataa inta midda ku dhacday waad garanaysaa habeen walba magaalo walba oo ka mid ah Soomaaliya intaasoo wiil baa midda ku dhacdaa ama xabad ku dhacdaa nabadgelyada aynu ka shaqeyno aan soo jeesano midda labaad oo ah in aan laga bilaabo way soo istaagay in laga bilaabo meesha lagu qabaha ka shaqeeyay wadaadkuna waa sheegay BRC sargaalkeeduna waa sheegay war sadaqadu waxay ku baxdaa casabada ilaahay baa quraankiisa ku yiri
صدقة كبلها ببلان إن نبض هذا كشقينه هرمك هذا كشقينه من نبض هذا كشقينه ما كان تاك شقينه أيام نطلع علينا درس كأنه أقل مدبر درس كأنه كلا هالديسة وقوية يا إلا مقتشي وضنه ورنا بتقليه معها كلية إن أمريكا كشقيسة أما باريس أما لندن أما مقتشي وهذا وقرا وشوف إن ترى شو حاسة كده وروح حاجة كده وتعرف تنفيري تندرس waxay u baahan tahay shacabkaagana ma aha inay meel kale aadaan ayagoo u baahan inay baahida halkaa ka bilaabaan waa in la isku xirmo jaranjarada ilaa iyo xamar waa inay xiran tahay oo ay ka bilaabato gurigaaga ilaa iyo inta kusii xigta aynu wada wadno soomaalinimadu waxay ka timid iyo nabadgelyada oo raadinaya intaas waa buntlandna maanta waxaad moodaa in dhallinyaradeedii xataa qaarkood ay aaminsan yihiin inay khaldan tahay ما خلطنا لكن سياسيين تنبى الرأي بليه وقت بصعدا وقت قاس بتشوفه وحول قبطة يا قفصومية لكن واحد لقرب وإنا إيرانيان أو أي سوي شيء للهبني مال أو أي واحد بابا أما السوشيال ميديا أما سكلا وإذنك وهذا اللي يرضى وحين عندكم قبل ما قفصومية وإنا سوي شيء ستان ويك أب كول بالكربا إنا سوي ستان دقوها يدين تاجنا إنه كل هالشيء مسكح هالشقيس واحد بابا إنا والشقين دابا سميسان waxayna anigu qabad ma qabsoomayaan boqolkiiba 70 waa dhalinyaro Soomaali oo dhan haday Soomaali oo dhan dhalinyaro wada shaqeyso ee laga haro qabyaaladda ee laga haro ficilka ee Soomaalinimo iyo Buntlandnimo iyo dadnimo la yimaado wallahi wax badan bay gaarayna oo billahi wax badan bay gaarayna aynu wada shaqeyno oo aynu wada shaqeyno